waxaa jira shimbir yar oo alla u tasbiixsan jiray maalin walba. Maalin maalmaha kamid ah ayuu sida caadada ahayd oo u tasbiixsan jiray Rabbina u bari jiray muusan sameyn. Kadib malaa'igtii ayaa Rabbi waxay weydiisay sababta uu tasbiixsan waayay shimbirka yaraa. Ilaahay wuxuu yiri uu imaan doonaa shaki la'aan sababtoo ama haysto cid kale oo u sheegta dhibka haysto. Maalin ayuu shimbirkii soo istaagay geed korkiis. Kadib malaa'igtii ayaa jecleysatay inuu la hadlo, balse wax hadal la muusan horan. Rabbi subxaanahu wa tacaala ayaa yiri hadal oo sheeg waxa qalbigaaga ciriirinaya. Wuxuu yiri waxaan lahaa buul yar kaasoo ahaa gurigeyga, laakiin waa iga qaadatay Rabbiyow. Dabeel ayaad ii soo dirtay oo buushka iga qaadatay, marka waan caraysanahay. Kadib shimbirkii waxa ka soo daatay ilin, malaa'igtii oo idinna way aamustay. Ilaahay wuxuu yiri waxaa jirtay abeeso taasoo ku socotay buulkaaga si ay kuu cunto. Kadib waxaan amray dabeeshayda si ay u rogto buulkaaga oo aad hurdada kaga kacdid una badbaadid adiga. Mar labaad ayuu ooyay oo malaa'igta oo dhan ay wada maqashay oohintiisa shimbirkii wuxuuna yiri alla maxaa ka naxariis badan Rabbiyow, ma sidaas ayaad ii badbaadisay ma moodeynin. Haddaba dulucdii ujeedada waxa ay tahay ha u murugoonin arrin aad heli weysay. Haddaad ogaan lahaydeen siduu Rabbi subxaanahu wa tacaala arrimaheena u kala dabarayo, qulubteena oo dhan way rogman lahayd. Xiisaha aan u qabno kaliya wax kala bedelkiisa. Maxaa yeelay Rabbi waxa uu ka badbaadinayaa masiibooyin badan oo kugu hareysan oo aadan ka warqabinin. Mar walba aad u tasbiixsato shimbirkaas sababta buulkiisa dabeesha ay u burbursana waxay ahayd si shimbirku hurdada uga kaco u badbaado una duulo. Mar walba wuxuu u tasbiixsan jiray Rabbigiis isagoo ka bari jiray wanaag oo dhan. Sidaas darteed ayuu Rabbi ugu abaal guday inuu siino